sida uu dhigayo qodobka 8aad ee heshiiska kontonaayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa Muqdisho ku yeeshay kulan wada xaajood siyaasadeed ah 11 November 2020 kaas oo uu gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Maxamed Xuseen Rooble. ra'iisul wasaaraha ayaa soo dhaweeyay wafdiga midowga Yurub lana wadaagay muhiimadda uu Soomaaliya u leeyahay xiriirka kala dhaxeeya midowga Yurub. labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimaha ay sida isku midka ah ay u daneynayaan ee ku saleysan ajendaha wadajirka ah ee lagu heshiiyay wada xaajoodkan ayaa muujiyay wada shaqeyn heerkeedu sareeyo oo ku dhacay jawi furan saaxiibtinimo oo wax dhisaya. wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay kulanka ra'iisul wasaaraha la qaatay saraakiishan ka socotay midowga Yurub. Sadarkiisana waxa halka ku soo gabagaboobay shir isugu yimaadeen dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub. shirkaas oo ka soo qayb galeen oo hogaaminaya ra'iisul wasaaruhu waxa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo dhinaca midowga Yurub ay ka yimaadeen safiiro fara badan oo ka kala yimi ka kala socda wadamo kala duwan. arrimaha looga hadlay waxa kamid ah saad qiyaasaysan arrimaha doorashooyinka, laga hadlay arrimaha amniga, laga hadlay horumarinta dhaqaalaha, waxa laga hadlay caafimaadka, laga hadlay waxyaalo fara badan xuquuq insaanka. arrimahaas oo dhan baa laga hadlay iyo su'aalo iyo jawaab badan meesha la isku weydiiyay. si fiican buu dhacay. waa shir inta badan qodobka 8aad wada xaajood qodobka 8aad midowga Yurub iyo Soomaaliya ayaa loo yaqaanaa Article 8 dialogue. mararka qaarkood dhowr gabdhood mar buu dhacaa. shirkaasaan isugu nimi khudbadda ra'iisul wasaaruhu jeediyay tii wasiirada dhammaan ay ku iyagu jeediyeen baxeen waxyaalo badan oo runtii isugu soo dhawaanay laba dhinac laga wada shaqeynaa arrimaha laga wada hadlay iyo saan soo kaashan lahayn mustaqbalka. shi wanaagsan buu ahaa runtii. waxaan rajeynayaa insha Allah shirka xigana qodobada laga hadlay kuwa ka duwan oo ka hadlaya laftigooda waxyaalaha markaa taagan aan ka wada hadalno. heshiiskan seexanay oo ra'iisul wasaaruhu gobjoog ka ahana waa heshiis ku saabsan horumarinta dhaqaalaha midowga Yurub ku bixinaya Soomaaliya kaas oo meelo badan oo dhaqaalaha wadanka saameyn ku leh wax ka qabanaya. marka arrimahaas oo dhan bay hayeen intaas aan ku soo koobi karaa wixii faahfaahinna diyaar baan idin bile mire Maxamed Home Cable TV Muqdisho. ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyadood taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai موبايلو تلاجدو قسالدو تابلتس dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash. wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333